soo dhawaad saaxiibayaal xiisadda dagaal ee bariga dhexe ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii dawladda Iiraan ay ku dhawaaqday in weerarkii abid ugu cuslaa ay ku qaaday gudaha Israa'iil taas oo dhalisay walaac caalami ah oo ku saabsan in dagaal ballaaran uu mar kale ka qarxo gobolka bariga dhexe haddaba weerarkan Iiraan ay sheegtay saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay gudaha Israa'iil sideese ugu falceliyeen dawladaha dariska la ah Iiraan iyo beesha caalamkaba warbixinteena ayaan ku eegi doonaa war rasmi ah oo ka soo baxay saraakiisha Iiraan ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ahaa jawaab military oo qorsheysan iyadoo la adeegsanayo gantaalo balaastig ah iyo gantaalo kale oo masaafo dheer gaara iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ee droneska dawladda Tehran ayaa waxay sheegtay in bartilmaameedyadu ahaayeen goobo military iyo xarumo istiraatiiji ah oo ku yaala gudaha Israa'iil kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay door ku lahaayeen weeraro hore oo lagu qaaday oo bartilmaameed looga dhigtay danaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Iiraan saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid si taxadir leh loo qorsheeyay oo ay qaadeen muddo kadib isla markaana lagu muujiyay awoodda difaac iyo weerar ee Iiraan qoraal ay soo saareen ayaa saraakiishu waxay ku sheegeen in Iiraan aysan aqbali doonin wax kasta oo weerar ah ama hanjabaad ah oo ugu imaanaya Mareykanka iyo Israa'iil kana dhan ah amnigooda iyo xulfadooda gobolka dhanka kale maamulka Israa'iil ayaa sheegay in nidaamyadooda difaaca hawada ay si degdeg ah u howlgaliyeen ayna u joojiyeen weerarka Iiraan ay ku soo qaaday gudaha Israa'iil ciidamada Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen in inta badan gantaalada iyo droneska ay soo tuureen Iiraan la soo riday ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedyadooda nidaamyada difaaca Israa'iil sida Iron Dome, David Sling iyo Arrow System ayaa la sheegay in ay door weyn ka qaateen ka hortagga weerarkani si kastaba ha ahaatee warar hordhac ah ayaa tilmaamaya in qaar ka mid ah gantaalada ay gaareen dhulka Israa'iil taasoo keentay qaylo dhaan iyo xaalad degdeg ah in la geliyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Israa'iil dadka rayidka ah ayaa lagu amray in ay galaan goobaha gabaadka iyadoo seeriga digniinada hawada laga maqlay magaalooyin kala duwan oo dhaca maamulka Israa'iil ilaa hadda lama shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka balse warbaahinta gudaha Israa'iil ayaa sheegaysa in baaritaano ay socdaan si loo qiimeeyo waxyeelada ka dhalatay gantaalada qaarkood ee ku dhacay gudaha maamulka Israa'iil dhacdadan ayaa keentay falcelin xooggan oo caalami ah dalal badan iyo hay'adaha caalamiga